gudoomiyaha xusbiga mucaaradka ee kulmiye Maxamed Kahayn Axmed ayaa sheegay in ammaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland markan khatar ku sugan yahay. Waxa uu sheegay oo uu dhaliil kala duldhacay lamaha ammaanka iyo sida xukuumaddu xilligan u maareyso ammaanka guud ee qaranka, isagoo sheegay khataro badan oo xilligan waajahayo qaranku oo ay ka uga tahay xagga amniga ee riboodka magaalada Hargeysa. Waxa uu sheegay 14 sano ay xilka joogeen inay si weyn uga taxadireen 14 sano ay joogeen xilka inaan mashaakil badan laga arag ee riboodka Hargeysa. Dhanka kalena seefantiga ammaanka guud ee caasimadda ay ku dadaaleen, balse maanta waxa wax ka duwan ay ka jiraan guud ahaan caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. gudoomiyaha xusbiga mucaaradka ee kulmiye Maxamed Kahayn Axmed ayaa sheegay si sahal ah in looga dhoofiyo riboodka Hargeysa $42,000 oo dahab ah inay tahay khatar weyn markana hubka Soomaaliland lagu qarxin ama si wax lagu yeeliyo si lamid ah looga soo dejin karo ay taasi tahay fudayd, isagoo sheegay hoostana ka xariiqay markan in loo baahan yahay in la sameeyo jadwal ka duwan jadwalkii hore loo waajahayay si nabadgelyada guud ee qaranka markan loo ilaaliyo. gudoomiyaha xusbiga kulmiye Maxamed Kahayn Axmed oo ka hadlayay xaflad qalinjabin arday ku qalinjabinaysa ayaa doorar kala duwan oo uu kaga hadlay halka ay ka mid ahayd arrimaha nabadgelyada iyo xilligan waxa ka taagan Soomaaliland, isagoo sidoo kale ka hadlay arrimaha dhaqanka iyo salaadiinta Soomaaliland oo uu sheegay markan inay ka dheereynayaan guuxooda, isagoo sheegay arrintii xilafooyin ka dhacday ee salaadiintu ka hadashay inay ahayd geef qaranka laga galay oo aan marnaba ahayn wax taariikhdu iloobi doonto. dhanka kalena waxa uu sheegay inay ahayd arrin aan la aqbali karin, isagoo soo qaatay inay salaadiintaasi ku yeedheen in qaranka laga badbaadinayo kulmiye, waxaana ku garnaqsaday 14 sano oo uu kulmiye qaranka soo hogaamiyey markan la yiraahdo qaranka ayaa laga badbaadinayaa. waxa uu meesha ka saaray dood kasta oo arrinta xilafooyin quseynaysa oo muujinaysay in khatar weyn uu ku yahay kulmiye qaranka, arrintaas inay ahayd gaf qaran oo laga galay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. gudoomiyaha xusbiga kulmiye Maxamed Kahayn Axmed ayaa markan si adag uga hadlay arrimo guud oo ku saabsan xaaladda guud ee ammaanka, isagoo sheegay siyaasadda markan lagu waajahayo guud ahaan qaran ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland arrimaha Soomaaliya inay ka muuqato habacsanaan aan loo baahnayn in mas'uuliyad la iska saaro sida loo maareynayo arrimahanina ay tahay mudnaanta koobaad ee tiirka nabadgelyada iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Soomaaliland. gudoomiye Maxamed Kahayn Axmed ayaa sidoo kale ganafka u daruuray hadal kasta iyo erey kasta oo muujinaya markan dabacsanaan iyo nugeel loo muujiyo kuwa diidan jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, soo kala dhaweysiga kuwa diidan Jamhuuriyadda Soomaaliland ay suurtagalaan hadalkiisa soo muuqanayo durxulayo dalalka kale ee gobolka iyaguna markan safka la noqday geeska Soomaaliya. gudoomiye Maxamed Kahayn Axmed arrimaha uu ka hadlay dhammaantood waxa ay quseeyeen qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, wuxuuse markan sheegay inay mudnaanta leedahay sidii Soomaaliland isku duubnideeda looga shaqayn lahaa mucaarad ahaan iyagu diyaar ay u yihiin wax kasta oo doorkooda ah, isagoo si weyn ugu tooqeen mucaaradka hadda jira yahay mid ka gedisan mucaaradadii hore oo uu jecel yahay qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. hadalkaas oo isaga laftigiisu ahaa durxul kale oo uu durxulayo mucaaradkii hore. gudoomiye Maxamed Kahayn Axmed hadallada uu ka jeediyay munaasabadan oo ahayd mid qalinjabin ah ayaa badankoodu ahaa kuwa siyaasi oo lagaga hadlayo xaaladda guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. saldanadaha waxaan u diranay dhaqan, waxa loo dirtay beelaha, waxa loo dirtay inay dhaqankeena ilaaliyaan, waxa loo dirtay inay beelaheena walaaleeyaan, waxa loo dirtay marka nabadgelyo iyo arrimo dhacdo inay ka sameeyaan. saldanaduhu arrinkaa looma dirin. saldanaduhu markay siyaasadda galaan saldanaduhu way milmaan. arrintaa salaadiinta oo aniga kuwayga looma diran. sababtu waxa weeye ninka maanta soo baxana dadka intiisa kale codkiisa way waasiinayaan, waayo waxa marqaati ku noqonaysa dalkaanu badbaadinaynay oo dalka ayaa laga badbaadinayo. si qoto dheer markaan uga hadlo oo xaqiiqa ah, anigu wasiirkii daakhiligan ahaa 4 bilood oo kaamil baan fadhiyay meesha 2 beelood oo degaan oo walaalaaba isku dilay. ilaa daahir riyaale markuu madaxweynaha cilada dagaalkaasi ceelafeen ka socdo way socotay. dariiqa hadday soo martayna cirka kamay soo dhicin. madaxweynaha imika maanta jooga waa madaxweynihii 6aad 5 madaxweynaha ka horeeyay. dadaalka 5tii madaxweyne ee hore ayaa lahaa. anuu kuwaasaanu ku jirnaa. ardadan
waxaynu doonaynaa inaynu qaran ahaan isu xilqaanno idinkana waxaa laga rabaa inay isxilqaantaan duruusaha barateen haddaad dib mid walba dib ugu noqdaan taariikhdooda inooyadan ka dhacay ilaa iyo cilmiga nuclearka ee maanta la isku isticmaarsadee la haysto waa la isku isticmaarsadaa inta nuclearka haysata adduunyada inta kale cunaha haysa waxa la xalaaleeyey 150 dowladood inta ka badan ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ku jirta waxa la 5 dowladood oo qura ayaa waxay yiraahdaan annagoo qura veto power leh veto power waxa weeye golahan aynu imika fadhino oo issue-ga laga hadlayo arrinta laga hadlayo nin qudhi intuu gacanta joogo yiraahdo waa veto waxba kama jiraan oo macnaheedu yahay waxa bini aadmiga inta leega ay ka hadlayaan haddaan anigu diiday waxba kama jiraan inta waxa keenay in ayagu nuclear-kii leeyihiin in adduunyada inta kala samaysatana ay diidan yihiin anigu dadkii ruushka waxa ku soo bartabeen Faysalka halkan ka soo kacay waxaan anagu tagnay ninkii nuclear-ka casriga ah ee ruushka hindisay adduunyaduna markaa ay gaadhin Sakharov oo dhalin yar oo markaa ay dawladdiis qabsadeen oo shuuciyad baa jirto dimuqraadiyad iyo arrimaha u baxay waxay dunu baantiin markaa barnaamij waxa weeye dawladdu inay barnaamij samayso dadkani ay maxaan soo gacan qabtaan laakiin waxa weeye bacdama wax barateen in ay idinku laftiinu barnaamij keentaan hal abuur keentaan research samaysaan cilmigiina tijaabisaan dadka baac mushtariga baa qaar u samayn kartaan jaamacadihiina u samayn kartaan reer guuraaga u samayn kartaan beeralayda u samayn kartaan anigu mar walba jaamacadaha waxaan ku niraahdaa dadka jaamacadaha ka baxay waa in ay hal abuur la yimaadaan taa markaan intaa kaga baxno Faysal hadda jeer siyaasaddu yartaa taabtaa wuu ku fiican yahay afayeenkii xusbiga kaahna waa kii uga markhaati furay waa yes jaamacadaha culumta researcheska cilmi baarista arrimaha lagu sameeyaa siyaasaddu waa ka mid waxa nolosha bini aadmiga lagu hormariyaana siyaasaddu waa ka mid laakiin munaasabadaha lagaga hadlaa taardadan qalin jabisay maaha laakiin haddii laga yara hadlay aniguna in yar baan ka odhanaya waa tiyaar la soo qaaday arrintii ceelafoyn afayeenka xusbiga kaahna oo mar hadda siyaasadda xusbigiisa ay tahay uu yidhi dalkaa lagu badbaadinayay horta kaah waa magaalo yaroo degmo ahoo degmooyinka dalka ka mid ahoo 5 degmo xoolo dhaqatada Soomaaliya la oran jiray ugu badan lahoo taariikh halgameed iyo taariikh fara badan leh laakiin munaasabada laga hadlayo si qoto dheer markaan uga hadlo oo xaqiiqa anigu wasiirkii dakhliga ahaa 4 bilood oo kaamil ah baan fadhiyay meesha 2 beelood oo degaan oo walaalaaba isku dilay ilaa daahir riyaale markuu madaxweynaha cilada dagaalkaasi ceelafin ka socdo way socotay halkaa waxa loo diray beelaha deegaanka degan asal ahaan isir ahaan deegaan madax dhaqameedkoodii baa loo diray beelihiina soo heshiisiya baa la yidhi beelihiina soo heshiisiya macnuhu waxa weeye beelihiina ka adkaada nabad ka keena tiro maxaan ku idhaahdaa 200 ku dhow baa dhimatay tiro 200 iyo 300 ku dhow baa dhaawaca arrinta loo diray arrintaas ay ahayd labada beelood ee ka tirsan yihiin baana loo diray looma dirin siyaasad xusbiga codka la siinayo looma dirin siyaasad dalka la badbaadinayo oo yaa laga badbaadinayo ma xusbiga kulmiya laga badbaadinayo ma Muuse Biixi laga badbaadinayo ridistiisa la ridayo xusbiga kulmiye 14 sanadood buu dalka soo maamulayay siyaasadda maanta taagan ilbaxnimada maanta taagan aasaabta maanta taagan horumarka maanta taagan waa xusbiga ugu badan ee sameeyay talooyinka uu keenay ee aan siyaasadda
وحوي أحزابته إنه كنتو وحلا innovation وإنه كنتو هالعبور ururada siyaasiga ah in siyaasiyiintu chance shaka qaybgalka dalka cidda sameysay waa kulmiye markuu kulmiye sameynayay ee aad yaroo dhalatay xusbiyadu meesha ay imanayeen maxaan ku idhaahdaa hawshiisa la sameynayay isagoo xisbi qaran buu ahaa dhowr iyo 10 baa meesha keenay bakhtiyan nasiibku ka qayb galay wuxuu yiraahdaa aniga badkayga taala waa karayay in la yiraahdo nasiibka yaan hadno waa la karayay arinta loo diray madax dhaqameedka gef siyaasiya bay qarankan ku ahayd qolada qabta cidda laga badbaadinayna waa cid u jeegta waa cid reer u jeeda arintaas siyaasadana bari hore laga baxay axsaab baynu samaysanay 2002 aad yaroo dhalatay waxa la yiraahdaa axsaabtaasaynu ku tartamaynaa suldaankii baa halkan inagala hadlayay saldanadaha ugu daada roon ee dalka reer Somaliland beeshan bartamaha degta labada saldanadood ee ugu qotoda dheer buu ayuu ka soo jeedaa saldanadaha waxaan u dirannay dhaqan waxa loo dirtay beelaha waxa loo dirtay inay dhaqankeena ilaaliyaan waxa loo dirtay inay beelaheena walaaleeyaan waxa loo dirtay marka nabadgelyo iyo arrimo dhacdo inay ka sameeyaan saldanaduhu arrinka looma dirin saldanaduhu markay siyaasadda galaan saldanaduhu way milmaan beeshu way kala baxdaa arrimahan waa la kala sameeyaa marka waxaan leenahay Faysal la gaashaanbuurtii uu ciriya la galay barigii horaas hayatay arrintii ceelafeen may sahayan anaguna waxaan leenahay taanu gudoomiyaha xisbiga kulmiyana hayo kii loola jeeday meesha ugu badan ee xisbigiisa lagu hadal haybaabaan anigu kamid ahayo arinta salaadiinta oo aniga kuwayga looma diran sababtu waxa weeye ninka maanta soo baxana dadka intiisa kale codkiisa way waasiinayaan waayo waxa marqaati ku noqonaysa dalkaanu badbaadinaynay oo dalka ayaa laga badbaadinayay 1991 taliskii maxamed siyaad barre laga badbaadiyay dadkii u soo halgamay dadka kulmiye ka tirsan madaxda ahaabay u badnaayeen marka waxaan leenahay tafsiir xun oo siyaasi ah oo wax ina kala reebo bay noqonaysaa saldanaduhuna saldanadaha ku ekaadaan axsaabtuna axsaabta ku ekaato salaadiin siyaasiyiintuna qabyaalada ha ka fogaato sidaasaynu qaran ku noqonaynaa mid la iskuma hayo waa dhab wasiirka arrintii uu sheegay suldaankuna wuu sheegay dawladda imika joogta waa looga yaro werwerayaa waxa weeye Somaliland dadka ku soo ay dal dagaalamaysa ninkii jiray wuxuu yidhi meesha loo socdo nin rigina waa ogyahay nacasna loo sheegi maayo in ka soo dagaalantay in taliskii hore kamid ahaana waa jirtaa in Somaliland aaminsanayd oo maanta xamar aaminsanina way jirtaa in maxaan ku dhahdaa Somaliland oo maanta xamar joogto golayaasheeda iyo wasiiradeeda iyo baarlamaanadeena jirtaana way joogtaa waxa qoro loo baahan yahay daayartiina dawladii South Africa markii cadaankii laga xoreeyay ee Nelson Mandela la soo daayay ayaa waxa loo bixiyay born free generation daayartii nabadgelyada iyo maxaan ku dhahdaa xorriyadda ku dhalatay idinka leedin xoreeyay idinka xorriyadda leedin sameeyay soo inay imika ilaashataan maaha yaa hadda waa ina ogaataan jaamacadahan xamar baa loo tagi jiray scholarshipka xamar baa loo tagi jiray waxa laga yaabaa inamadu markay secondary-ga ka baxaan inaan inta xamar tagi kartaa ay yar tahay silic baa lagu noolaan jiray markii dambana jaamacadaha xamar oo qudhaan laga sameeyey secondary-ga Camuud iyo ka Sheekh iyo Technical Institute kan Hargeysa iyo Jarmalku kii Burco ee u dhisay dhowr iyo 60kii saddexda iskuul hore markii hore high school la odhan jiray
secondarygii ugu horreeyey siilaaye baa ka baxay institutekii ugu horreeyeyna maxamed xaashiya baa ka baxay dabadeedna markay arrintu intaa ahayd somaliland siday u dhantay saddexdaa iskuul bay lahayd kaa jarmalkaa ku darsamay maanta tuulo kasta oo dalka ah dugsi saraa ku jira dhowr iyo 30 waa mise jaamacaduhu ya waa dhowr iyo 20 jaamacadood baa maanta somaliland ka tirsan ergaabay ka shaqeysay inta caynabay xalay laascaanood bay ka samay jaamacadu ka jiraan burco ka jiraan berberay ka jiraan hargeysa ka jiraan gabiile bay ka jiraan maxaan ku dhahdaa boorame ka jiraan degmooyinka imika la bilaabaya inay jaamacaduhu qaarkoodna way ka fureen caynaba colleges baa ka furan ood weyna hadda laga furaya marka waxaynu u baahannahay somaliland dariiqaasay soo martay dariiqa hadday soo martayna cirka kamay soo dhicin madaxweynaha imika maanta jooga waa madaxweynihii 6aad 5 madaxweynaha ka horreeyey dadaalkaa 5tii madaxweyne ee hore ayaa lahaa annagu kuwaasaanu ku jirnaa xusbiyada imika jooga dadaalkaa waxba kumay lahayn laakiin maanta laga rabaa hal abuurka ay wax ku yeelanayaan dhallinyaradiina waxaa la rabaa in arrintaa ilaalisaan waxaynu u baahannahay inaynu xad kala yeelanno waa dhab dareen fara badan baa ka jira dowladda waxaan leeyahay waxaa hadda imika la leeyahay innaka iyo xamar waan isu furannahay faysal waa runtii dhowr iyo 40 kun oo dollar baa ka baxay baankeenna ayaa ka baxay waxaan leeyahay airportkeenna hubka somaliland lagu qarxinayaana wuu soo mari karaa mamnuucaadkayda ku jiraan waxaan cashuuraynay inay ka baxaan marka waxaan leenahay waynu dadaalaynaa qarankeennu meel fiican buu imika marayaa laakiin meesha fiicana uu marayaa waxa weeye waa haddaynu inaku ilaashano qarankeenna waa haddaynu inaku ka tagno qabyaaladeenna waa haddaynu inaku ka tagno maxaanku dhahdaye dhaqan xumada siyaasiga iyo dhaqan xumada dhaqan iyo dhaqan xumada bini'aadminimo iyo dhaqan xumada diiniga aynu imika la nimi waa haddaynu intaa ka tagno ayuu dalkeennu inoo ilaashamaya aad iyo aad baan idin hambalyaynayaa waxaan leenahay allah idin barakeeyo macallimiintii idinsoo bartay aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa macallimad jaamacadda guddoomiyaha jaamacaddana aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa waxaan aad iyo aad u hambalyaynaynaa jaamacaddan inay ka mid tahay jaamacadaha Rift Valley Universities ee Ethiopia ee baraafitka ah waa dal aynu jaarnahay inaynu wax badan wada wadaagnaa baynu u baahannahay qarniyo badan baynu cadaawad ku soo nooleen laakiin imika inaynu ka baxnaa baynu u baahannahay aad iyo aad baynu idin soo hambalaynaynaa waxaan leenahay aad iyo aad u dadaala cilmigii hadda waddada cagta saarteena ku sii wada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu